saddexdii bishan January sanadkan cusub 2026 ciidamada Mareykanka oo wata 150 diyaaradood oo ka kacay 20 saldhig diyaarad ayaa fuliyay howlgal qorsheysan oo guuleystay kaas oo lagu qabtay madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro. howlgalkan military oo ciidamada Mareykanka ku afduubteen madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro ayaa ahaa kii ugu halista badnaa oo ciidamada Mareykanka fuliyeen kadib 12 sano ee ugu dambeeyay marka laga reebo howlgalkii iyo weerarkii sanadkii 2011 ay ciidamadan gaarka ah ee Mareykanka fuliyeen kaas oo ay ku dileen hogaamiyihii al-Qaacida. inkastoo dana iyo ujeedooyin waaweyn uu ka leeyahay Mareykanka dalka Venezuela, haddana dowladda Mareykanka iyo madaxweyne Trump ayaa marar kala duwan ku eedeeyay Nicolas Maduro inuu ku lug leeyahay arrimo la xiriira ka ganacsi daroogo. laakiin falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in sheegashada Donald Trump ee la xiriira daroogada ay uu ku eedeeyay Nicolas Maduro uu ka weyn yahay oo ka duwan yahay taas, balse ay jiraan ujeedooyin iyo qorshayaal uu Mareykanka ka leeyahay Venezuela. xogo sirdoon ayaa tilmaamaya in weerarkan howlgalka ay ciidamada Mareykanka fuliyeen 3 bishan January kuna soo afduubteen madaxweynaha Venezuela inuu ahaa mid qorsheyntiisa iyo diyaarintiisa la waday 10 bilood ee ugu dambeeyay. talaabadan iyo go'aankan madaxweynaha Mareykanka Trump oo uu qaatay weeraridda dalka Venezuela lana soo qabtay madaxweynihii Venezuela ayaa noqday mid dunida ka yaabiyay, wuxuuna dhaliyay cambaarino caalami ah. kadib weerarka iyo howlgalka Mareykanka ku soo afduubteen madaxweynaha Venezuela Maduro, waxaa maalin kadib ka hadlay weerarkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa mid muujinayay awoodda Mareykanka. Trump oo howlgalkan ammaan kala duldhacaya ayaa hadalkiisa ku daray in howlgalka lagu soo qabtay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ay caqabado badan ku hareersanayeen, laakiin si fudud caqabadahaasi loogu gudbay. sida uu Trump hadalkiisa raaciyay xilli uu maalin kadib weerarka howlgalkooda oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Florida. Mareykanka iyo Donald Trump ayaa madaxweyne Maduro iyo xisbigiisa iyo kuwa kale talis ah sidoo kale ka soo horjeedaan dimuqraadiyadda iyo in xisbiga madaxweyne Maduro uu la shaqeeyo Ruushka iyo Shiinaha. xiisadda Mareykanka iyo Venezuela dhaxalsanaa ayaa sidoo kale la tilmaamaa inay sabab u tahay Mareykanka oo xilliyo kala duwan diidmooyin la xiriira wada shaqayn kala kulmay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro. ujeedka Mareykanka ayaana ahaa inuu Venezuela dhinaciisa u soo jeediyo kana soo jeediyo xiriirada Venezuela la leedahay dowladaha Ruushka iyo Shiinaha maadaama dalkani uu qani ku yahay shidaalka.